kubadda cagta Muqdisho City Club tababarada Xuseen Emblango ciyaartan waxa uu ku soo bilaabay ciyaartooy ka mid yihiin El Capitano Ciise Cabduqaadir Ibrahim Ismaaciil Xuseen Maxamed oo kulankii saddexaad u ciyaaray kooxda Muqdisho City Club Xasan Maxamed Aadan Xasan Santos Cabduqaadir Aadan Eno Banteke Marcel Samsom Oyugi Daahir Maxamed Maxamuud Najiib Gabere Matan Oyugi lambarka 12aad ee kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club waa uu soo baasay ciyaaryahanka lagu magacaabo Marcel Faisal sidegan ayaa ku bilowdeen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club difaacooda midig ciyaaryahanka Faisal iyo badbaadintii Abshir Cabdullaahi Maxamed سعجيب أيو سكروسي سعجيب أيو لوجا ساري سعجيب أيو دمسترن وقدم بين عالم وضو على كيسايا تجنا جزور زياد نوودي الجول كاسي سامسون يوجي يسوق الجول أيو كواد كوادو تباركو أبشر عبد الله محمد لاعب كلو مجاوب درام وكل جينو قبصة مارسل والو قول دقيقة على مكوبدا وهاي كود هذا الجول أيو أبشر كوبدا سواي جارت اللاعب كلو مجاوب عبد القادر هذا نينو بانتكه تابشر وسمي بانتكه وقدم بين بناك أيو كود مستري ciyaarta lagu dara daawada ay soo idlaatay daahir banaanka ayuu soo dhigay kubadaasi Cabduqaadir ayaa ku socota Faisal Asad ayaa soo gaartay Faisal banaanka ayuu soo dhigay Amiin Ahmed Salah Yemeni waa uu soo saaray Chagwood Aksobi Cristiano waa uu soo madaxeeyay Hussein Yusuf Dabaso waa uu xakameeyay ugu dambeynna garsoore siyaad seriga ayuu ka dhawaajiyay waxaana qaybta koobaad ee ciyaarta lagu kala maray daawadayaal 0-0 0-0 ciyaaryahanka lagu magacaabo Amiin Ahmed Salah waa uu sujuuday kadib markii seriga uu ka dhawaajiyay garsoore siyaad وين كوبادا سولوميو علي ياري مركل way qaldeen barbaarta MCC بس يعني الله صدي اللاعب كلو مغاب نيكولاس واو تفقوليا تشغودي ولا بدباسي دبل بيليان سافا يسمى غولايا سعيد ويس علي يمني قربك يوسو ديغا سيمولا محمد جليلو عياريان كلو مغاب سيمولا واو سو كروسي قربك يتلا لاعب كلو مغاب جينا بس يعني يوسو ديغا سانتوس kubadda cagjaran ayuu ku gama gool ayaa lagu magacaabo Abshir Cabdullaahi Maxamed isagoo kuma uusan dhaqaaqin booskiisa jihada uu joogay uu timaaday ugu dambeynna sidegan ayuu kubadda soo qabsaday gool ayaa koowaad ee kooxda Tabarko Master Abshir Cabdullaahi Maxamed kubadda uu soo ciyaarayay ka dheeraatay Chagwood Aksobi Santos suwabshay ugu dambeynna uu xasiliyay si xandaaba uu tuuray si xarakada uu badbaashay gool ayaa Abshir Cabdullaahi Maxamed waxaana ay kubad qof kasta uu xiisanayay Faisal Asad باص في عن مارسل سامسون يوغا wonderful pass wonderful goal golazzo MCC ayaa hogaanka qabatay Faisal Asad ayaa si wacan ugu baasay laacibka lagu magacaabo Marcel Samsom Oyugi Marcel waxa uu sameeyay qaadasho Marcel waxa uu sameeyay toogasho Marcel waxa uu qaribay rajadii yariyada kala hayeen kulankan kooxda gaadiidka Faisal si qurux badan ayuu kubadda soo baasay si aragtila ayuu baasay si khibrad ku dhisanta ayuu baasay Marcel ayaa xakameeyay ugu dambeyn waxa uu ka dhaliyay angalka Marcel Samsom Oyugi weeriyaan dhameystiran bal aan mar kale daawano bal aan mar kale qiimeeno bal aan mar kale aan daawano kuna raaxaysano goolku dhali laacibka lagu magacaabo Marcel dhiibadii uu bixshay ciyaaryahanka lagu magacaabo Faisal Asad waxay ahayd kubad ku dhisan hal taabasho xabadka ah iyo hal dhameystir oo ka timid lugta midig ugu dambeynna wuxuu ku sujuuday qaybta calanka ee garoonka Banaadir Stadium iyo dekada kuwaas oo horyaalka kali ku ah maadaama 32 dhibcood ay leeyihiin garsoore Abuukar Cabdi Hiraabe seriga ayuu ka dhawaajiyay barbaarta Muqdisho City Club way adkaadeen galabta gaadiidka waa laga adkaaday gibihan ciyaartu waxay ku dhamaatay gool eber dhaliyaha goolka qorey ciyaartan laacibka ka saacida kooxda kubadda cagta ee barbaarta Muqdisho City Club guusha galabtan waa ciyaaryahanka lagu magacaabo Marcel